ruushka waxa uu wadaa qorshe uu saldhig military kaga dhisan doono dekedda magaalada Berbera sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya saraakiisha difaaca dowladda Mareykanka. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in ruushka uu sidoo kale wada hadallo la yeeshay Eritrea iyadoo danaynaysa in ay dhisato xarun logistikada ah oo ciidamada badda waddankaasi ay adeegsadaan. Hadday arrintan dhaqan gasho, dowladda ruushka waxa ay ku biiri doontaa Shiinaha iyo Mareykanka oo saldhigyo ku leh dalka Djibouti. Dowladda ruushka ayaa sheegtay inay si dhow la soconayso dekedda magaalada Berbera halkaasi oo ugu habboon saldhig military. Warbixintan oo lagu daabacay wargeyska The New York Times toddobaadkan ayaa lagu sheegay in xiisaha joogtada ah ee ruushku u qabo Afrika uu walwal badan ay ka qabaan dalalka reer galbeedka. Maqaalkan ayaa lagu sheegay in qayb ahaan saraakiisha Mareykanka oo falanqeynaya waxa loogu yeero tartan awood oo aad u xoogan ay ka walaacsan yihiin saameynta sii kordhaysa ee ruushka iyo sidoo kale Shiinaha, iyadoo ay Washington ay la halgamayso sidii ay u dardargelin lahayd himilooyinkeeda dhaqaale iyo kuwa amni ee qaaradda Afrika. Saraakiisha ruushka ayaa sheegay inay saldhig ka samaysanayaan magaalo xeebeedka Berbera ee maamulka Somaliland. Mareykanka iyo Shiinaha oo labaduba saldhigoodu yahay Djibouti ayaa xadka badda la wadaaga dekedda ruushka oo mustaqbalka halkaasi ka rajeynayo. Geeska Afrika waxay istiraatiijiyad muhiim ah u tahay arrimo badan oo dhanka awoodda ah. Kuwa kalena waa sababtoo ah waxa ay u ogolaanaysaa labadaba saadaasha awoodda bariga dhexe iyo saameynta ay ku yeelan karto marinka Suez ee loo maro gacanka cadmeed. Haddii la xaqiijiyo, tani waxay noqonaysaa saldhiggii ugu horreeyay ee ruushka uu ku yeesho Afrika tan iyo dagaalkii qaboobaa oo tallaabo weyn u noqon doona madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin barnaamijkiisa oo dib loogu nooleynayo ciidamadii ruushka ee mar uun deegaanadaasi joogi jiray. Saldhigga ayaa la filayaa inuu hoy u noqdo 2 markab oo kuwa waxdumiye ah oo sidoo kale burburin kara 4 maraakiib oo nooca dagaalka ah, 2 markab oo waaweyn oo nooca gujiska loo yaqaan oo badda hoosteeda quusa, 2 diyaaradood oo ay qaadi karaan ilaa 6 diyaaradood oo culus iyo sidoo kale 15 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah. Khubarada ayaa rumaysan in halkaasi uu ka jiro tartan aad u weyn kaasi oo ay qayb ka yihiin wadamada Shiinaha, Midowga Yurub, Mareykanka, Indiya, Brazil, Turkiga, Iran, South Korea iyo wadamada Khaliijka oo iyaguna daneynaya in ay kordhiyaan iskaashiga ay la leeyihiin Afrika. Muuqaalka Russia ee ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee Afrika waxa uu ka hooseeyaa ku dhawaad dhammaan wadamada kor ku xusan xilligan. Ganacsiga ruushka ee Afrika waxa uu ka yareeyay qiimo lacageed oo dhan $12 bilyan. Warbixin ay daabacday majalada New African bishii November ee sanadkii 2018 ayaa lagu sheegay in ruushka ay wada hadallo ku saabsan saldhig ay ku yeeshaan Berbera ee kala hadleen maamulka Somaliland.